waxaan isu dardaarmaynaa cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan iska reebaynaa macaasida rabbi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu tuqaati walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun insha allahu tacaala waxaan si kooban maanta aan uga hadlaynaa dhowrkii beriya lasoo dhaaftay arrinta aadka uga taagan gobolka minnesota laakiin waddanka maraykanka beriya lasoo dhaaftay aadka uga jirtay ice ama qoladan loogu talagalay inay migrationka ama dadka soo galootiga ah ay raacfaan yani af soomaaliyaas dadku fahmayaane dadkaasoo hadda gobolkeena iyo twin citieska maalmahan jooga iyo arrintaas wixii ka dhashay iyo bulshada iyo cabsida ku timid iyo bulshada iyo waxa laga rabo arrimaa iyaan si yaro kooban isu dultaagaynaa biidni illaahi tacaala haddii alla idmo marka koobaad waxaan rabnaa inaan ogaano qofka bini aadamka ahu haddana markuu muslim sii yahay nicmada iyo wanaagga labaduba waa qayb ka mida inuu qofku u diyaar garoobo nicmada iyo wanaagga waxaan rabnaa in ilaahay loogu shukriyo subxaanahu wa tacaala dhibka iyo culayskan ilaahay loogu sabro subxaanahu wa tacaala ayaan doonaynaa marka koobaad nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam isagoo arrintaa inoo tilmaamaya ayaa wuxuu leeyahay cajaban liamri lmu'min qofka mu'minka arrintiisu layaab bay leedahay maxaa jira ina amruhu kulluhu khayr arrintiisoo dhanba khayr weeyaan wax ka xumaanaya ma jiro waa markuu mu'min dhaba yahay wax ka xumaanaya male maxaa jira xaaladeennu ama xaaladaadu waa un laba weeyaan in asaabatu saraa shakar in aad nicmo hesho oo markaad nicmo hesho maxaa la iska rabaa muncimkii kuu nicmeeyey inaad ku shukrido ood ilaahay ugu mahad celiso subxaanahu wa tacaala oy nicmada aad heshay ay kaa dhigto qof dabacsan qof naxariis badan qof ammaano badan qof dulqaad badan qof cibaado badan ay kaa dhigto nicmadaasu inaysan kugu keenin kibir inaysan kugu keenin inaad tidhaahdo sida nabiyullaahi sulaymaan uu yidhi markuu arkay cashigii barkiisa haadaa min fadli rabbii liyabluwanii ashkura am akfur waman shakara fainamaa yashkuru linafsi waman kafara faina rabbii ghaniyyun kariim marka nicmo inuu qofku sidaa u garto oo ay noqoto markuu ilaahay nicmo na siiyo subxaanahu wa tacaala inaan dhan loogu shukriyo subxaanahu wa tacaala qaybta kale nolosha waxaa dhici karta inaadan mar walba ayna saa nicmo iyo barwaaqo u jirin testi baa la maraya imtixaan baa la maraya challenges iyo kadhaca kadeg baa la maraya muxuu ahaa inaka kaadixun ilaa rabbika katxan famulaaqiihi baa la maraya ina almu'mina yamuutu bicarqi ljabinayn isagoo qofku muxuu ahaa rajadaya oo noloshu ay tahay daaradhac iyo kifaax haddii marka culays uu yimaado maxaa la rabaa waa ka xagga kale nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam tilmaantu inoo sheegaya wain asaabatu daraa sabr hadduu culays yimaado adkaysi buu samaynaya dulqaad buu samaynaya taxamul buu samaynaya culayskii yimid ku keeni mayso intuu argagaxo inay noloshu ay ka dhunto intuu argagaxo in wax walba iskaga dhex yaacan ku keeni mayse adkaysiya dulqaad bay ku xambaaraysaa saasuu nabigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka sabirkii iyo adkaysigii iyo taxamulkiina waa maxay khayr bay qofka u noqonaysa khayr bay qofka u noqonaysa marka qofku labadaa xaalo mu'minka ah ayaa la rabaa inuu mar walba labadaa midku yahay markay nicmo helaan inaan allihii muncimka u shukrino markuu culays yimaadana inaan adkaysi dulqaad samayno adkaysiga dulqaadkiisu dhiibid maaha waan dadaalaynaa wax allaala wixii xuquuq ah wax allaala wixii muxuu ahaa aan xaq u leenahay ayaan rabnaa inaan raadino inaan samayno inaan iska celino wax allaala wixaan munaasab ahayn laakiin haddana inaysan inagu abuurin argagax iyo jazac iyo muxuu noloshu inay upside down noqoto oo la kala yaaco inaysan inagu abuurin ee adkaysi la sameeyo ayaa la rabaa sidaasuu marka nabigu inoo tilmaamaya sala allahu calayhi waaalihi wasalam muxuu ahaa waxaa suuragala mararka qaarkood qofka markuu imtixaan ku yimaado imtixaankaasu in uu micno fara badan ama wanaag fara badanba uu keensanayo oo markii qofka intuu sabro u adkaysto waxaa suuragala dadka ama qofka iyo dadnimadiisa ayay soo saaraysaa qofka iyo iimaankiisa iyo daacadnimada iimaankiisa ayay soo saaraysaa qofka iyo ummadda iyo taxamulkeeda iyo waxa loo bixiyey resilience adkaysiga bulshadaas ayay soo saaraysaa markii xoogaa dadka la tasgareeyo la imtixaano oynan mar walba micnaheedu ahayn markii culays kugu yimaado in culayskaasu uu intuu dhexda kaa jebiyo ama dhexda kaa jebiyo ummadda ay burburto inuusan ahayn ee culaysku u ina baro taxamul iyo adkaysi iyo resilience inuu ina baro ayaa la rabaa waxaan rabnaa inaan ogaano barwaaqaduna waa imtixaan dhibkuna waa imtixaan oo waa maxay wanabluukum bishari waalkhayri fitna labaduba marka nicmo badan aan lagu siiyo waxaa la arkayaa nicmada oo la doonayaa nicmada ay habdhaqankeeni culays yimaadana culayskii iyo saad u tacaamusha iyadana marka labadiiba fitno weeyaan
labaduba waxaa la rabaa qaabka looga falceliyo marka noqonaysa qaabka looga falceliyo markii nicmadii looga falceliyo sidii habboonayd wanaag bay noqonaysaa iyo culayska lafteeda haddii looga falceliyo sidii habboonayd qof dadka imtixaankii way ku gudbeen yani marka labadiiba waxaa la rabaa inaan sidaas u tacaamulno ayaa la inaga doonaya biidni illahi tacaala oo la inaga rabaa insha allah waxaa la yidhahdaa marka nicmada markay dadku helaan dadku waxay u kala baxaan 3 qaybood qola waxay iloobaysaa nicmadan ciddii xaqa u lahayd ee siisay oo maro fara badan wuxuu noqonayaa caqliyadii qaaruun iyo fircoon oo kaleeto inama utiitu calaa cilmin cindi dadka waxbaan dheerahay waxaas sababtaasna aniga aan waxan ku helay dadka kale waa xasharaad iyo waxaan qiimo lahayn aniga iyo inta ila midka ayaa wanaagsan inama utiitu calaa cilmin cindi kala ina alinsana la yadqa an ra'aahu istagna qolo marka waa sida qof ama ha noqoto majbuuco ama ha noqoto qof cidi qadarisaasay u dhaqmayaan marka waa si aan habboonayn waa si khaldan waa si aan sax ahayn diin ahaanna sax kuma aha damiirka qiyamka akhlaaqiga bini'aadminadana sax kuma aha insaan loo dhaqmaya waa qayb weeyaan qolo labaad baa jirto waa maxay qawmun yashkuruuna bialsinatihim walaa yashkuruuna bijawaarixihim waxaa laga yaabaa marar fara badan in carabka la yidhahda alxamdu lilah laakiin xaqiiqada dhabtaa marka mucaamalada la fiiriyo iyo habdhaqanka inaysan muuqanin mucaamaladii habdhaqankii inaysan ka muuqanin muxuu ahaa aysan ka muuqanin in ilaahay lagu shukrinayo subxaanahu wa tacaala mucaamaladooda arkaysaa sidqi kama muuqato ammaana kama muuqato ixtiraam kama muuqdo naxariis kama muuqato qofkaa kale ee dhiban u turid iyo u adkaysi kama muuqato afkan waxaa laga yaaba in la yidhahdo alxamdu lilah wama akthara yani fara badana marka kaasuna waa nooc aan sax ahayn weeyaan qolada kale ugu dambaysa waxa weeye waa qawmun shakaruu xaqa shukr waa dad ilaahay ku shukriyey shukrigii dhabta ee xaqiiqadaha alla ku shukriyey weeyaan subxaanahu wa tacaala waxay garteen nicmadan inay mas-uuliyadi la socoto xooluu alla ku siiyey mas-uuliyad baa la socoto barwaaqbu alla ku siiyey mas-uuliyad baa la socoto amni iyo nabadgelyu alla ku siiyey mas-uuliyad baa la socoto caafimaad ba alla ku siiyey mas-uuliyad baa la socota meel fiicanoo lagu nooloodo alla ku siiyey mas-uuliyad baa la socota marka qolo saasay marka ay u garatayo waxay fahmeen nicmadan ay haystaan horta marka koowaad muncim u nicmeeyey inuu jiro oo khaaliqa rabbi subxaanahu wa tacaala haddii xataa aad ugu shaqayso oo dadaashay caqliga iyo caafimaadka ku shaqaysay ilahay baa ku siiyey subxaanahu wa tacaala caqliga iyo caafimaadka ku shaqaysay ilahay baa ku siiyey subxaanahu wa tacaala marka ugu dambaynta waxaan oo dhan hal masdar bay ka soo fulayaan oo khaaliqa rabbi subxaanahu wa tacaala taas marka waa qayb weeyaan waxay ku xambaaraysaa lilcamal dadaal shaqo waa qul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuulu ayay ku xambaaraysaa waxay ku xambaaraysaa oy samaynayaan oy mar walba ay ku dadaalayaan faidaa faragta fansab ilaa rabbika farqab shaqadu ma dhammaato camalku ma dhammaado wax khayrku ma dhammaado hadduu mid dhammeeyato kalu gelaya shaqo joogtaa ayay ku xambaaraysaa waxay ku xambaaraysaa albadla in wax la huro in wax la dhiibo in wax la quuro waqtigiisa qofka caqligiisa cilmigiisa xoolihiisa ayuu bulshada ka saacidaya bulshada ka kaalmaynaya albadl badligu mararka qaar waxa laga yaaba waxa la dhiibo ugu yar waaba xoolaha yani aqoontaada ayaa dadka ku kaalmaynaysa caqliga ayaa dadka ku kaalmaynaysa xirfadda iyo waxa taqana dadka ku kaalmaynaysa xoolahaga dadka ka kaalmaynaysa albadl saasuu samaynaya cid walba oo uu kaalmeeyana kuma mana sheeganayo kuma galladaysanayo iskama dhigayo inuu wax dheer yahay iskama dhigayo inuu wax dheer yahay kale waa maxay binaa النفس والمجتمع مجتمع iyo dhismihiisa mujtamac in la dhiso midnimadiisa wadajirkiisa qiyamkiisa akhlaaqdiisa in la dhiso damiirkiisa in la ilaaliyo wax walba oo mujtamac dhaawac ku in laga hortago shaqadaas ayuu qabanayaan dadkaas kuwaas marka waa kuwa ilaahay oranaya subxaana wa tacaala la in shakartum la aziidannakum dad ku shukridaan alla uu idiin badinaya rabbi subxaanahu wa tacaala ilaah uu idiin kornaya rabbi subxaanahu wa tacaala ilaah uu idin siinaya rabbi subxaanahu wa tacaala marka nicmada markaan haysano waxaan rabaa in nicmada alla idin siiyo subxaanahu wa tacaala aan sida ugu wanaagsan u adeegsano oo qaybaha aan soo tilmaanay ah waxaa kaleeto sidaas barwaaqadu ay qayba u kala tahay ayaa laga yaabaa culayska dhibkuna dadku inay qayba kala noqdaan dhib baa dhacaya culays baa dhacaya dad marka waa argagaxayaan way naxayaan walwal fara badan iyo culays fara badan baa yaa imanaya waxaa ku dhacaya muxuu ahaa xataa inay quustaan oo rajabeel noqdaan waxaana la yidhaahdaa jirada waxa ugu xun qofku markuu rajabeel noqdo
أما أمد مركز رجال عن نقطة خلاص give up وح بدل يا مالك no way out مشان صدر لقب حماية وجزع وأرجع حوريان إذا مسه الشر جزوعا ولسبوا أركيا ولسبوا لكم يا مركز أرجع عادي هاي يا قبل يا قبل marka systemkaas sax ma waxaan rabaa markuu culays yimaado in xoogaa tiraa marka koobaad alxamdulilah calaa kulli xaal wanacuudu billahi min xaali ahli naar aad tiraahdo imisaan nicmo iyo wanaag haystay horta imisaan wax fiican haystay tanna waa temporary insha allah waa laga baxayaa kadibna aad raadiso qaabkii looga bixi lahaa qaabkii aan la nimaano tafaacul inaan la samayno oo qaabkii looga bixi lahaa laga shaqeeyo ayaa la rabaa lama rabo in la isdhiibo la isdhigto lama rabo yani in argagax intuu dhaco nolosha dhan shaqo laga dhigo la kala cararo lama rabo yani waxaa rabaa in xaddi la sameeyo challenge la sameeyo qaabkan culayska yimid looga bixi lahaana in la sameeyo ayaa la doonayaa biidni illahi tacaala oo la iska raba marka qoladaas waa qolo weeyaan qolada kale waa maxay waa tiin waxaa laga yaabaa inay jirto dad u muuqato muuqaalka inay sabrayaan laakiin xaqiiqada aan saabiriin ahayn muuqaalka caro iyo jazac kama muuqdo laakiin quluubuhum mutaxassila muta'allima mar walba cabasho qalbiga ka tabanaya mar walba inuu maaragtay waxaan yar u dulqaadan layahay adkaysan layahay waxaa ka muuqanaysa غير راضية بقضاء الله وقدره marka waa tiimkii hore yaro dhaamaa laakiin sax maaha yani qolada saddexaad waa maxay waa kuwa sabraya ilaah ku raadi noqonaya laakiin dadaalaya وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ورينا ودقاقين ددال سميني وياك أما كان يقول الله هذا وليس بما المهجرة وليس كاسجرة وحان ربنا مركا ما حين سمينا سيئنا والله هذا waxaa laga yaabaa cabsi badan inay jirto argagaxda inay jiro waana reasonable waana legitimate weeyaan waa macquul weeye dadku inay cabsadaan waa macquul weeye waa wax la fahmi karo inay cabsi timaado waa wax la fahmi karo waxaasoo dhan laakiin maxaan rabnaa inaynu samayno maxaan yeelnaa maxaa la inaga doonayaa su'aalahaas marka waa muhiim inaan isweydiino marka dhowr baan si degdega aan uga jawaabayaa haddii alla waxaan rabnaa marka koobaad bulshadu markuu culays yimaado bulshadu horta inay isku tashato isku tiirsanaato oo ay ka shaqayso wixii la oran jiray intaas mar walbana asalka inoo ahaa midnimo iyo wadajir waana hadii ummadkum ummatan waaxida waana rabbukum fa'buduun waana rabbukum fattaquun wadajirka iyo midnimada in laga shaqeeyo in la is ogaado in midka baahida baahi haysato midka tabar daran meesha culays ka jiro waxaasoo dhan in la ogaado marka wadajir in laga shaqeeyo wadajirna in lagu waajaho wadajirka waxaa la socda hadda halkan aan ka hadlayno oo aysa bulshaynu qayb ka nahay mujtamac baan qayb ka nahay wadajir waxaan doonaynaa aan kaashanayno dadka kale ee meesha waddanka jooga aan qaybta ka nahay aan kaashanayno oo aan allies aan leenahay waxaana rabnaa laakiin fiiri marka xataa barwaaqa jirto inaan allies leenahay ama dad aan leenahay markay dhibaata inagu timaado keliya maaha waa muhiim weeyaan hadda maalmaha dadka ugu badan ee hadlaya difaacaya ina difaacaya waxaa dhici karta intooda badan inaysan xataa midabkeenoo kale lahayn isku diinna aynaan ahayn yani marka bulshadaas inaad aalay aad leedahay adigu marka hore daakhiliyan inaad u midaysan tahay hoostaada ama muxuu ahaa haddana aan leenahay dad aan isku doon saarannahay oon aan ka wada shaqaynayno danta guud ee magaalada danta guud ee gobolka danta guud ee waddanka aan ka wada shaqaynayno oo aan u arkayno oo u arkaya innaga iyagu inaan isku maslaxanna taana waa qaybta labaad weeye oo lagaba maarmaanka marka waa wadajir iyo muxuu ah isgaashaan buuraysi weeyaan qodobka waa lagaba maarmaan weye waxaan rabnaa in lasii dadaalo oo lasii xoojiyo lasii wado waxaan rabaa waad artay dadkii waaweynaaba laga yaaba inay argaxsan yihiin oo naxsan yihiin oo isku bugsan yihiin wax badan dhacayaan carruurihii iskuullada dhiganayay wax warama ka haynaa horta daan hadda idin weydiiyey intiinii hor fadhida ilmaha iskuul idiin aado waxaa dhici karta kuwa waxay dhigtaan second grade ama fourth grade ama third grade ama ilaa high school dhigta da'daas hadaan hadda dhaho farta taaga intay la fadhiisatay ilmaheeda waraysatay ilmaha iyo siduu dareemayo ilmaha iyo xaalkiisa ma jirtaa horta inaguma badna
laga yaabaa inaan xataa meelaha kale aan ka hadalno xoog gelino laakiin ilmahaniiba aynan hoos ugu noqoninba yani waxaan rabnaa in waalidku ilmaha la fadhiisto ilmuhu waxay dareemayaan barashar iyo culays badan bay dareemayaan miidiyaha saa adigu ugu jirta ka badan bay ugu jiraan waxaa laga yaabaa haddii xataa ilmuhu iyagu yihiin citizen wuxuu leeyahay oo waalidkii waa in magaratay citizen ma ah waalidkii baa la dhoofinaya xaalkayga ka waran leegu noqonaya kaasankaygii baa la dhoofinaya in adeerkii baa la dhoofinaya kaana qaanis ka soo ciyaaraya la dhoofinaya sidaa dhacday waa qayb ka mid waa walwalkaas waxaa kaleeto ilmuhu waxay ku jiraan muxuu ahaa mujtamac bay qayb ka yihiin carruuro kaleeto haddii marka ay marar fara badan ay maqleen oo community soomaalidu waa garbage soomaalidu waa sidan soomaalidu waa tan soomaalida faroor baysanaysa waxbay xadde oo miduu u celceliyo in badan oo ka mid ilmaha ay isla dhigtaan iskuulka cafeteriyada ay wax ka wada cunayeen baska ay raacayeen yaa ilmihii waxay ku oranayaan oh garbage baa tihiin waa ina dhacda yani ilmihii okay ilmuhu marka see dareemayaa marka qaybta labaad aan rabo waxaan rabaa waalidku إن شاء الله وأنا كتر بهن دونا برنامج ما كسر ما يندونا لكن وارد كل الميز على فريسته إنه ورئيسته أرمى حد عن شيء إنه ويدي لما هي درين فيسا إنه ويدي حتى عسلا كترين جرتي إن كلاته هذا يجي تسمحوا يري المه محو جوابك تلابط فرن يرمنا قال نوام محي واقف كله يا مرمان marka waa qodob aan doonayo ilmuhu waalidku in ilmahooda la socdaan mar walba culayska noocan yimaado inta inageena saameynaysa ka badan ba ilmaha yarka saameynaysaa yani marka arrintaas waa qodob aan doonayo waalidku inay ogaadaan arrintaas hadda wayna soo gaadhay waxbaan isku dayaynay inaan ka samayno laakiin waxaan rabnaa hadda ay tahay waalidku inuu ilmihiisa la sheekaysto la hadlo wax ka weydiiyo qodobka kaleetan doonayo waxa weeye aan tilmaamo oo muhiim ay tahay haddii barashara ina saaro oo culays uu jiro bisnisyadeennina aan xirno haddii ogow cabsidii way guulaysatay aniga marka waxaan rabaa inaan sax barashar baa jira cabsi baa jirta laakiin waxaan rabaa inaan bisnisada la xidhin hadda marka maalmahan laga hadlayay moolalka ugu waaweyn aan leenahay waxaa lasoo saaraya moolalka la waa empty oo way xidhan yihiin ani waxaan qabaa arrintaas waa khalad weeyaan anoo moolalka in la furo waa taxaddi baan rabnaa inaan galno dukaamadu waa inay furnaadaan maqaaxyuhu furnaadaan taxaddi baan gelaynaa ta kale wayna tahay waxaan ku doodaynaa innaga inta iyada badanu boqolkiiba 80 iyo dheeraad waxaan nahayba citizen yani inta kalena inteeda badan waxay haysataa waraaq dokumento legal marka soo businesska loo xidho ma jirta yani haddii laakiin businesskii la xidho cabsidii la doonaya in la sameeyo way guulaysatay marka waxaan rabnaa in taxaddi lagu galo arrintaa iyada waa inay masaajiddu furnaadaan waa inay businessyadu furnaadaan waa inay moralku furnaadaan waa inay bulshadu muxuu nolosheedii si caadiya si ugu wadan lahayd ay ka shaqayso arrintaas waa qodob kaloo asaasi ah oo doonayno inaan isku baraarujino maxaa jira haddii arrintaasu ay wuxuu wax laba maalmood iyo 6 maalmood iyo soconay waxaa dhici karta inay bilo socoto waxaan rabnaa marka challenge-ga inaan galno annaga oo fahamsan waxa aan doonayno iyo waxa aan nahay laakiin haddii aan already isla shaqo laga dhigo dadku si ma wala kala cararo wixii la doonaya lagu guulaystay yani waa qodob kale weeyaan qodob kale ee muhiimka ah ee doonayno waxa weeyaan insha Allah taala wax la yiraahdo aad bay maalmahan looga hadlayay waxaan rabaa in lagu celceliyo wax la yiraahdo know your rights qofku inuu xuquuqdiisa ogaado qofku inuu xaq u leeyahay inuu ogaado way badan tahay hadda ma tafaasiilinayo laakiin waxaan rabaa in case hadday ice ku joojiso oo ku qabato maxaad oranaysaa very simple way حق بأمني حق الورحة إن اللي هذا الشيء هذا citizen حورنا I am US citizen I don't want to talk to you period أريك أنا كنت أكتب بعني خلاص وحوراك صحيح حق الورحة صحيح الورحة وما بان إذا وراك صحيح خصميني حتى هذا تقال إنجليش رح نقول لها صوابها حيسة لأن يرد أنت فكرت أما كنا رتو إسكاد جيا حريف إلي واحد يقدر يوصل صحيح عن هالسمايني وحبها صحيح مل هديت له جوه ده هيلي حق له جوه ما هيع وحربت هذا وقيب كاملة وده هذا والله هذا وكل علم دونا لكن وحنا مهمة دتكو إنه أوجادان نو يو رايتس وحليه يدا إنجليش وحليه يدا صومالي وحليه يدا أورما ولا وده هلي يعني لغوي بديه كقرن يعني marka laakiin waxaan rabaa si kooban arrintaas waa muhiim waa laga marmaan haddii aad haysato citizen ma tihin laakiin waxaad haysataa identification kale oo sharci aad haysato waddanka sharci baad ku joogtaa waddanka markaas
لكن وحاقيننا إنه قف أوجي هاي حقوق ديسا حقوق ماله هذي يقول لك لسوق راح هفرن هدو عند وسوق راح هذا ولا تورات محكمة سو سمايسي أو جوري النمبر كله أيام صعنا قف بالبندورينا قاضي جاج بصوص صحيح وراقده هدين لو تو ففريس جوري لكن عندك هذا نقطة كفر حقه ما يصبت يعني بس إسكاجي سوق قرن وفشل حقه ما له هدين ودين وراقده سوق قرن كمعلومات كسوة مهم يعني وحموه هو كلته أو أن دنيا dadka Soomaalida professionka ah aqoonta leh inay in fara badan bulshada wacyi geliyaan oo aan laga sugin kaliya wadaadka iyo masaajidka inta jooga gaar ahaan dadka mutacallimiinta inay bulshada wacyi gelin badan ay u sameeyaan bulshada wax badan loo tilmaamo bulshada xuquuqdeeda loo tilmaamo arrintaas waa laga marnaan weeyaan waxaan rabaa dhowr xabad degdeg oo kale inaan sheego hadda ma hayno boqolkiiba boqol laakiin waxaan ka shaqeynaynaa last 3 days haddana weli aan ka shaqeynaynaa loo yaqaan waa la tashanaynaa inaan heli karno waxa la yidhahda safe space meelo xataa dadka bilaa sharciga ah ama leeyahay sharci ma haystaan ay joogi karaan oo uuna ays ayna soo geli karin ayaan ka shaqeynaynaa ma hubno boqolkiiba boqol inaan helayn laakiin waa working on waan wadnaa kaniisadaan la tashanaynaa synagogue baan la tashanaynaa mujaahiid baan la tashanaynaa loo yaqaan la tashanaynaa waxaan isku dayaynaa inaan helno at least space saas oo kaleeta haddii aan laydmo oo dadka wixii bilaa sharciya at least aan ku hayn karno maalmo joogi karaan wixii aan qaban karno waan samaynaynaa laakiin waxaan rabaa inaan ogaano in badan oo dadka sharciga leeyihiin yani waa qayb weyn waxaan kaloo rabaa inaan tilmaamo markuu culays kala yimaado oo dadku walwalku ka bato oo laga yaabo inaan 3 habeen 4 habeen la seexanin waxaa dhici karta dadka inuu ku dhasho cudurro maskaxeed walwal baa imanaya hudalaan baa imanaysa buuq fara badan baa laga yaaba inuu yimaado in general iyada lafteeda waxaan maalmihii lasoo dhaafay aan la hadlaynay dhakhaatiir iyo cisbitaallo laakiin intaan taa la gaarin dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira cudurrada maskaxda bartay marka waxaan rabnaa dadkaasu inay dadka noocaas ka warqabaan qofkuna hadduu dareemo walwal dheeraad hurdalaan hadduu dareemo inuu nala soo xidhiidho waan caawinaynaa waan la hadlaynaa talooyin baan siinaynaa haddii loo baahdo dhakhaatiir baan ku xiraynaa haddii alla idmo taana waan ka shaqaynaynaa biidni illaahi tacaala waxaan rabnaa taana waan wadnaa mashruucaas waxaan isku dayaynaa aan muxuu ahaa aan ka guurgaarno iyada laakiin in case dadku waxaan rabnaa inaysan qarsanayn markuu culays ku yimaado duruuf noocaasi timaado waxaan rabnaa dadka ehelkooda ugu dhow inay u tilmaamaan dadkaasuna ay nala soo xidhiidhaan isaga oo aan safetigiisa la ilaalinayo ayaan talada ugu habboon siinaynaa biidni illaahi tacaala taana waa qodob kaloo muhima waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo arrin hadda waxaan arkaya maalmaha dad badan oo dadkeenna hadlay way mahadsan yihiin waxaa hadlay siyaasiyiin waxaa hadlay dad kaleeto oo culimo waxaa hadlay looyaro way mahadsan yihiin dadkaasoo dhan dad fara badan baa ina taageer aniga waxaan rabaa inaan in kale ku daro markaan hadlayno innaga keliya inaan isu hadline waxaan rabnaa inaan u hadalna dadka aan wax u hadla lahayn aan waxaan rabaa dadka Soomaalida ee hadlaya inay yidhaahdaan cid walba u soo baxda waad mahadsan tihiin laakiin waxaan rabnaa in iyagana la taageero la gacan siiyo our brothers and sisters in the Hispanic community yaa u maqan Latino community innaga mar walba waxaan rabnaa in la inoo hadlo laakiin waxaan rabnaa inaan u hadlo Latino community oo innagoo kala weliba in badan oo ka mid inaga liitaan yani marka waxaan rabnaa inaynan mar walba doonin innagu in la inoo hadlo innaguna in la ina caawiyo innagu dadka caawino innagu dadka u hadalno innagu dadka difaacno innagu dadka u doodno waxaan rabaa looyaqadeenu inay dadka u doodaan siyaasiyiinteenu inay dadka u doodaan culimadeenu inay dadka u doodaan innagu aan dadka u doodno oo noqono dadka kale ka fikiraya oo ahayn oo keliya aniga uun iyo communitygaaga ka fikiraya waan dhaafay dad kalan ka fikiraya dad kalaan ilaalinaya dadka kalaan xuquuqda u doodaya arrintaasi waa muhim weeyaan waa lagaba maarmaan wey waxaan rabnaa inaan noqono dad bulshada meeshan degan oo dhan danaheeda ilaalinaya danaheeda ka fikiraya danaheeda waardiinaya saasaan rabnaa biidni illaahi tacaala taana waa dardaaran kale oo doonayo maalmahan soo socdo markaan hadlayno inaan ku darno hadalkeennu oo ku jirta yani innaga waxaa laga yaabaa hadda last few days bay nagu bilaabatay ama wiigiya ka dadka Hispaniga ama Latinaha waxay ku socotay dhowrkii bilood la soo dhaafay afar bilood waxaan ka hadlaynay dad Latina oo kaniisado basementigooda ku jira oo si cunto loogu geyn laga shaqeynayo waxaan rabaa mararka qaarkood inaan inagu noqono dad providerisa dadka waxtara dadka wax u qabta inaan noqono biidni illaahi tacaala taana waa dardaaran marka ayuha alikhwa ayatuha alakhawaat waa la dooyaa la dacroon waa laga bixi
laakiin waxay u baahan tahay adkaysi, waxay u baahan tahay isku duubnaan, waxay u baahan tahay is ilaalin, waxay u baahan tahay is dhowrid. waxaan rabnaa sharcigana in la ilaaliyo, sharciga in la dhowro, qaanuunka maxaa loo hogaansamo ayaanu baahanay. in case ice hadday ku qabato ha la dagaalamin, don't resist, ha samaynin, ha dagaalamin, u hoggaansan. haddii lagu xiro meel baa lagu geynaya, waa laga daba tegaya. laakiin haddaad dagaalanto dhulka lagu jiido ama lagu dilo ama dhaawac lagu geysto waxba kugu tari mayso. marka taana waxaan rabnay iyadana inaan samayno insha allahu tacaala. ugu dambayntii waxaan doonayaa mar walba waxaan rabnaa inaan iswaafajino spiritualka iyo caafimaadka. insha allah jumcada soo socota waxaan samaynaynaa halkan masaajid, waxaan ka samaynaynaa tallaal. waddankan xilliga qaboobaha dadka tallaal baa la siiyaa, la yidhaahdo flu vaccine. marka qof kastoon istallaalin, rag iyo dumar, halkan uu iman karaa. tallaal baan siinayna insha allahu tacaala. haddii aan laydmo dhakhaatiir baa imanaysa dadka tallaalaysa. marka qof walboon istallaalin xilligan flugan seasonkan aan istallaalin, labadii bilood lasoo dhaaftay oo aan qaadanin tallaalka loo qaato qaboobaha ama hargabka loo qaato, da'du dooni ha jiro, wuu iman karaa. halkan waana la tallaalaya insha allahu tacaala. aqulu qawli hada waastaqfirullah li walakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا